kusoo dhawaada cashirkan waxaan ku baran doonaa qaabka loo bedelo desktop background. Desktop background waxaa la dhahaa shaashada hadda waxaa ii saaran sawir. Sawirkan waxaa waayay sawirka window ayaa ii saaran. Haddaba waxaan rabaa inaan ka bedelo sawirkan ii saaran oo ku bedelo sawir kaleeto ama background kaleeto inaan soo saarto. Qaabkee loo bedelaa waa simple. Marka ugu horeysa meel banaan tag, right click ku dheh. Right click markii aad dhahdid qaybtan hoose soo soco, qaybtan personalize ku qoran tahay ku dhufo. Waa ku dhufatay waxa ii soo baxay windowgan ayaa ii furmay. Markaas waxa sameynaa hadda waxa ii saaran sawirkan ayaa ii saaran sida aad ka arki karto meeshan. Shaashadu waa tan ujeedaa. Sawirkaas ayaa ii saaran. Waxaan rabaa inaan ka bedelo oo sawirkan kale inaan saaro background-kayga. Ku dhufo. Markaan ku dhuftay si automatic ayuu isku bedelay. Hadda ujeedaa shaashadii maxaa saaray sawirkan ayaa saaray bal aan hubino iga xir. Waa xirayaa shaashadii ayaa tagayaa waa tan. Hadda maxaa ii saaran sawir kale ayaa soo saaray oo waa bedelay kii hore. Aan ku laabana meeshii meel banaan kiri ku dheh personalize. Hadda sawirka ii saaran waa ka meeshaan ka muuqda bedel. Sawirkan badda lagu dabaalanayaa saaran ma fahanti. Hadda waa ka sawirka waa bedelay maxaa saaray background nooc kale oo bad ah iga soo xir aan fiirino. Waa sax oo waan bedelay sawirkii background-kii hore. Qaabkaas ayaa loo bedelaa desktop background. Waa mahadsantahay inta aan ku kulmi doono cashirka xiga. Waxaa idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.